السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maantana waxaynu sidii caadadayno ahayd aynu halkan ku qaadan doonaa ama aynu kaga warrami doonaa noocyada dumarka Soomaalida ee aan u cuntamin in la guursado. waxaynu hore uga soo warramay noocyada ragga Soomaaliyeed ee aan u qalmin ama aan xaq u lahayn in la guursado. maantana sidoo kale waxaynu ka warramaynaa noocyada dumarka Soomaalida ee aan u qalmin in la guursado. waa imisa nooc maxay kala yihiin mid walba maxaa lagu cileeyay wax sabab kasta halkan aynu ka fahmi doonaa insha Allah taala. inta aynaan bilaabin barnaamijkeena waxaan si xishmad iyo qadarin la idin ka codsanayaa in aad inoo saartaan barnaamijka subscribe, share and like si uu u gaaro dhammaan ummadda ku hadasha afka Soomaaliga. aad iyo aad baad u mahadsantihiin, codsi weeye amar maaha. inta waxay raaca waxaan bilaabi doonaa hadeer barnaamijkeeni ayaan bilaabi doonaa barnaamijkeeni iska gudagali doonaa. waxaynu ka bilaabaynaa barnaamijkeena oo aynu qaadanaynaa insha Allah taala. waxa aynu ka warramaynaa noocyada ragga aan u qalmin in la guursado. noocyada ragga aan u qalmin in la guursado ama aanay ahayn in la guursado noocyada dumarka aan u qalmin in la guursado ee ay tahay in ay ragga Soomaaliyeed ka fiirsadaan. horeynu uga soo hadalnay ragga, maantana sidoo kale waxaynu liishaanka saaraynaa ama aynu ka warramaynaa noocyada dumarka aan ku habboonayn in la guursado oo lala wadaago nolol oo la noqdo lamaane nolol wadaaga. gabadha koobaad ee aan u qalmin in la guursadaa waxaynu leenahay waa gabadha loo yaqaano gabadha mana sheegadka badan. mar hadday gabadhu mana sheegad badan tahay oo ay mar walba tiraa waxaasaan kuu qabtay, waxaasaan kuu taray, waxaasaanu kuu tarnay, sidaasaanu kuu yeelay, waxaasaanu ku siinay, gabadhaasi way mana sheegad badan tahay. mar hadday mana sheegad badan tahay oo haddii ay qof maalin wax yar siisa ay meel walba ka sheegayso, taasi kuma habboona baa la yidhi in la guursado mar hadday mana sheegad badan tahay. waa gabadha mana sheegadka badan. gabadha mana sheegadka badani kuma habboona bay yidhaahdeen culimada ku takhasusay culunta bulshadu in lala wadaago nolol oo la guursado. gabadha labaad magaceeda waxaa la yidhaahdaa waa gabadha had iyo jeer xanuunka badan. xanuun badan mar walba waxay isku ridaa xanuun jinniyay isku ridaa, mar walba xanuun aan haynin bay isku ridaa oo beena oo aan waxba ka jirin. taasina ma habboona in nolol lala wadaago oo la guursadaa bay yidhaahdeen, taana ma habboona. waxa kaloo aan u qalmin in la guursado waa gabadha socodka badan. mar hadday socod badan tahay, socodka badani dumarka waxa weeye khatar buu ku yahay. socodka badani dumarka uma wanaagsana, waayo Soomaalidu waxa la yidhi been way sheegtaa, beense ma mahmahdo. waxay yidhaahdeen mahmaha Soomaaliyeed baa waxay odhanaysaa saddex lagu waaniyey saddex bay u halis tahay. saddex lagu waaniyey saddex bay u halis tahay. saddex lagu waaniyey saddex bay u halis tahay. cadrad cagaha dhig lagu waaniyey ceeb bay u halis tahay. caalim cibaadaysa lagu waaniyey cadaab buu u halis yahay. ciroolo dhaqasho lagu waaniyeyna caydh buu u halis yahay baa la yidhi. saddex lagu waaniyey saddex bay u halis tahay. cadrad cagaha dhig lagu waaniyey waa gabadhii oo la yidhi naahoy naa weli gabadh baa tahay, naa cagaha dhig, naa wareega iska daa, socodkan faraha badan iska daa, haweenka socodka waa looga wanaagsan yahay, gurigiina joog. ceebun bay soo wadaa gabadhaasi baa la leeyahay. ninka caalimka ah ee ilaahay cilmigii diinta baray ee haddana aan ku camal falayna ummaddii ay leedahay waar ilaahay ka cabso, waar sidan maahee ka daa, waar alla ka cabso, kaasina cadaab buu halis yahay. ninka ciroolo ah oo isagoo da'diisii weynaatay oo nin weyn oo odayo noqday haddana loo faraya ee waxa weeye xoolihiisii ku loo faraya xooggiisii iyo xoolihiisiiba, kaasina waxa weeye dee isaguna waxuu halis u yahay caydh. inuu caydhoobo oo uu hadhow dawarsado oo uu dadka baryo oo gacmaha hoorsado ayuu halis u yahay baa la leeyahay. markaa sidaasay u tiri Soomaalidu saddex lagu waaniyey saddex bay u halis tahay. waxa kaloo ay yidhaahdeen markay ka hadlayaan Soomaalidu markay ka hadlayaan arrimaha dumarka waxay yidhaahdeen Allahumma salli ala Muhammad, waxyaabo fara badan waxna waxay ku wanaagsan yihiin socodka, waxna waxay ku wanaagsan yihiin fadhiga.
waxay yiraahdaan saddex socodkay ku wanaagsan tahay saddexna fadhigay ku wanaagsan tahay yiraahdeen saddexda fadhiga ku wanaagsan waxa kamida dabka iyo dumarka waxay ku wanaagsan yihiin fadhiga dabku hadduu hulaaqada uuna luuguli gabadhuna haddii xuuri duuri noqoto oo ay xaafadaha wareegto oo ay waxa weeye gaari uun saarnaato oo kalba gobol ay u boqosho dee waxa weeye waxay soo wadaa waa ceebo marka dabka iyo dumarkuba baa la yiri waxay ku wanaagsan yihiin fadhigay ku wanaagsan yihiin ha waxa kale oo iyaguna jira waxyaabo socodka ku wanaagsan matalan daadku wuxuu ku wanaagsan yahay baa la yiri dee inuu socdo biyihii hadday halkii reerku deganaa fadhiistaan dee way arradii oo dhan bay qaribayaan diin fidiyuhuna socodku ku wanaagsan yahay baa la yiri waxyaabahaasina socodkii ku wanaagsan yihiin bay dhahdaan waayahay qodobka afraad halkaas saddex qodob baynu kaga soo baxnay dumarka aan la guursanin qodobkooda afraad wuxuu leeyahay waa naagta waa dumarka nooca loo yaqaano shantaag shan bay taagtaa talow shantaagi waa maxay waa dhegtaag waa iltaag waa gacantaag waa lugtaag waa aftaag shantaag baa la yidhaha gabadha shanta meelood shantaa wax bay taagtaa oo maxay yihiin waxa weeye gabadhu hadday tahay dhegtaag waa gabadh wax kasta maqasha inan yaroo intan leegoo farta cidideeda leegoo aad uga yar baa u imanaysa markaasay ka odhanaysaa naayahe miyaad maqashay heblaayoy waxaa iyo waxaasaa jira oo iska qaadanaysa iska shaandhayn mayso filterka iska marin mayso waxa weeye iska baandhayn mayso wixii oonay kala hufin oonay kala haadin ayay duuduubka ku liqaysaa markaa waa dhegtaag iltaag ilaahay wuxuu siiyeyba ma aragtee waxa ubadda kaluun bay ka sheekaysaa taasina waa iltaag oo looma baahna aftaag way cadho badantoo waa allowdudaa la idhaayo waxa weeye mar walba iyo saacad kasta habeen maalin aroor xilli walba waa cadhaysantay taasina looma baahna waxa kale oo weeyaan ta la yidhaahdo lugtaag waa hurdabada mar walba way hurdaa ta ugu dambaysaa waxa weeye gacantaago waa dagaal badan mar walba waxay ku jirtaa dagaal bay ku jirtaa ama dariskeeda ha kula jirto ama reerkeeda ha kula jirto ama reerkooda ha kula jirto ama asxaabteeda iyo qaraabadeeda ha kula jirteen taasina waa ta la yidhaahdo muxuu ahaa waxa la yidhaahdaa gacantaag markaa shantaag hadday tahay gabadhu hadday shantaag tahay iska jirninow waxa weeye godkaagii biyo kugu soo galeen haddaad shantaag guursato adigaa dee daraygaaga isdhigay weeye waayahay waxa ku xiga qodobka shanaad oo ah gabadha qaylada iyo qaxarka badan way qayle iyo qaxar badan tahay hadday gabadhu qaylo badan tahay oo ay qaxar badan tahay oo ay hadal badan tahay waxa weeye gabadhaasi waxa weeye halisteeday leedahay lalama wadaagi karo nolol waa tii hore loo yiri gabadha cagteeda iyo codkeeduba ha gaabnaadaan baa la yiri yacni yaanay wareegin yaanay qaylo badan labadaa qodob yaanay yeelan baa la yidhi waa astaamaha lagu yaqaano gabadha wanaagsan maxaa ka mid a cagteeda iyo codkeeduba ha gaabnaadaan hadday labadaa astaamood leedahay oo cagteeduna gaaban tahay codkeeduna gaaban yahay shantaagna aanay ahayn waa dhabeel weeyo haweenkuma jirto gabadha ahaa hore ugu soco guurkeeda waa qaaliban tahay waa sax weeye waayahay waxaynu ku daraynaa nooca allahuma salli calaa maxamed nooca lixaad ama gabadha lixaad waxaa la yidhaahdaa waa gabadha baalida ah baali waa basari gurigeeda ubadkeeda hoygeeda hugeeda midna nadiif maaha waa la yaqaanaa waa basari waa baali waa bagagi waa saddexda darajo ee ay basaridu leedahay way kala dardaran yihiin ya marka hadday gabadhu basari tahay waa kii yidhi abwaankii waxaan filayaa inuu ahaa oo yuusuf barraxirsi inuu ahaa baan filayaaye wuxuu yidhi guduud looma raaco haween gobolba waa cayne bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isu gaadhe gabadhaa tidhaa meelunbaa go-an guduud looma raaco haween gobolba waa cayne bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isu gaadhe gabadhaa tidhaa meelunbaa go-an buuri
يعني قبل كستوى الاستراحة قبل أن يبقى رميس بل أفيرسو وكورجل وحلاقة يا بائني واحد منيهيني إن كستوى إسكول رميدة أنا بناء آدم إسكول رميد لقى هلين حتى أنا وحلا ليه هي سفوين كي وناك سنة إيه قبل اللي بقول سنة أنتوا ده بدن حوضته قبله مركات تاسنا وقبل دي بالي ده هيدو واللمبرك اللي حاد وكي أبوان كلنا وحولها يو كم بدها هذا الذي سي وحكم بدها سبحان الله مهما دي سومار ده كلنا وحيا هاي كهذا اللي سي قبل بصري ده وحيا هاي صدح ويكو هدا هاد أروريو هلا بصري يهوغل حاجة صدح ذا سي ويكو هدا مبالغ هاد أروريو هلا بصري يهوغل حاجة صدح ذا سي ويكو هدا هلا بصري naagta basaridi wax ka qurux badan baa leeyahay markay halka ka soo baxdo waa heega muuqda waxa weey jaaheed iyo joogeeda laga yaabaya iyo jamaalkeeda laakiin waxa weey waa meel marantay waa meel maran marka gabadha guurkeeda waa la iska ilaalinayaa basari haday tahayba noocay doontaba ha ahaatee waaya oo waxa soo dhanba ku soo arooray tan toddobaad waa gabadha suruucyada badan ee cadhada badan mar haday salaantiyo wajiga cadhada soo saarto oo markaad wajigeeda sidaa u aragto aad ka subxaanalaysato taasina waxa weeye dee uma cuntantay in la guursado waxa kamida gabadha taqaana gogol ku cunka ayaa kamida gabadha taqaana gogol ku cunka ayaa kamida waxa kamida gabadha taqaana gogol ku cunka waa maxay waa gabadha odaygeeda ama ninkeeda waxa weeye saacadaha guriga la joogo hiigta waxa weeye haaranta waxa weeye dhibaatada u geysata aan markore ka aamusin uu ka seexan kari waayo waxa weeye markaas la yiri taasi waxay taqaanaa gogol ku cunkay taqaanaa hadii gabadhu gogol ku cunka taqaano abdama la habale taana waa in la iska ilaaliyo mar hadii gogol ku cunka taqaano halisteeda ay leedahay lama wadaagi karo nolosha waxa kamida gabadha la yiraahdo gabadha shaxaadka taqaana suuqaas ay u baxaysaa waa shaxaad tagaysaa suuqa u shaxaad tagaysaa ragay ku soo yeerinaysaa hebel bal noo dhib maanta wax xamahaynee taasina waxba kuma soo sidade waxaan ceebahayn waxa kale oo aan cuntamin in la guursado baa la yiri waa ta 11aad waa gabadha kaniga adag qalbi dhagax taasina uma cuntanto in la guursado maanta insha Allah waxaan ku soo koobayaa 11 kaasaan ku soo koobayaa noocyada dumarka aan muxuu ahaaye u cuntamin in la guursado oo nolol la wadaago aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaad noo jeceshihiin baanu idin jecelahay sidaad noo tixgelisaan baanu idin tixgelinaa sidaad noola socontaan baanu idin la soconaa saa noogu dadaalaysaan baanu insha Allah idin ku dadaalaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin akhyaartayada na daawanaysaay iyo inta na daawan doontayba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh